أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa suuradda labaad oo qur-aanka ka mid ah, suuratulbaqarati. baqaradii suuraddii lagu magacaabay, madaniyatu madiinay ku soo degtay, wa aayaatuhaa aayadahaaduna 186 aayatan weeye, 286 aayadood, 287 aayadoodna waa la yidhaahdaa. waxaa kaloo ay noqonaysaa suuraddaanu 6121 kelime ayaa la yidhi. waxay kalay noqonaysaa ha la yidhi 25,500 oo xaraf ay noqonaysaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratulbaqara ayaa la yidhaah. waa suuraddii labaad oo waxaynu ka soo baxnay suuraddii koowaad oo suuratulfaatixa ayaynu ka soo baxnay. waxaana meeshaan ka gelaynaa suuradihii dhaadheeraay oo markaasi waxa weeye 6dii dhaadheereed, amba haddii waxa weeye bacdul aqwaal la fiiriyo 7dii dhaadheereed markii la isku daro suuratulbara iyo suuratulanfaal. wixii markaasi suuraddatan muqadamadeeda aheeday waxaynu usoo marnay, horay ayaanu usoo marnay, iyo wixii ku jiray oo markaasi fawaa'idaheeday. caalimka la yidhaahda ibnulcarabi waxau dhahay suuratulbaqara waxaa ku sugan 1000 amar iyo 1000 nahyi iyo 1000 xugun iyo 1000 khabar ayaa ku sugan u dhahay. akhduhaa barakatun wa tarkuhaa xasratun u dhahay. suuraddaas waxaa weeye qaadashadeedu waa barako, ka tegitaankeeduna shalay weeye. badaladuna ma awoodi karaan oo suxarada la yidhahda markii guri lagu akriyo shayaadiinta kuwooda muruxsan soo geli maayeen 3 maalmood ayuu dhahay. xadiis oo abi hurayra uu wariyo saxiix muslimka u dhigayna wuxuu ahay rasuulkeenu inuu yidhi alayhi salatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira fa ina ashaydaana yaqra'u min albeyti aladi tuqra'u fiihi suuratu lbaqara. shaydaanku waa ka cararayaa guriga lagu akrinaayo suuratulbaqara ee suuratulbaqara ha lagu akriyo. amuurahaas waxaa weeye waxaynu kusoo marnay, casharkeenna hore ayaynu kusoo marnay. suuraddatan marka waxaa weeye waxay ka warramaysaa tashriicaad ayay ka warramaysaa. mar hadday suurad madani ay tahay, axkaam fara badan ayaa loogaga warrami doonaa suuraddatan. oo waxa weeye munaafiqiintii baa looga warramayaa, jihaadkii baa looga warrami doonaa, xajkii baa looga warrami doonaa, dalaaqii iyo nikaaxi ayaa looga warrami doonaa, xajkii iyo markaasi soomkii ayaa looga warrami doonaa. axkaam aad iyo aad u tiro badan, mucaamalatulbeec iyo amuurahaasaa looga warrami doonaa. bismi illahi araxmaan iraxiim. alif laam mim allahu aclamu bimuraadihi bidalik. alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxa weeye qur-aanka waxaanu ugu tegi doonaa meelo badan oo sidaas ayaanu ugu tegi doonaa. xuruuftatan hadda waxa weeye oo markaasi munazalada ah oo lagu soo dejiyey suuradaha awaa'ilkoodu waxay gaarayaan 14 xarafay gaarayaan. oo haddii markaasi xuruufulhijaayiga uu leeyahay carabiyadu ay leedahay, ambase waxa weeye qur-aanku uu leeyahay niskeeda noqonaysa. maxaa yeele 28 waatay aheeday xuruufulhijaa'igu. waxayna ku kala qaybsan yihiin 29 suuradood ayay ku kala qaybsan yihiin. alif iyo laam waxaa lagu bilaabanayaa 13 suuradood ayaa lagu bilaabanayaa. xa iyo miimna waa 7 xamiime 7 suuradoodaa lagu bilaabanayaa. da waxaa lagu bilaabanayaa 4 suuradoodaa lagu bilaabanayaa. kaaf waxaa lagu bilaabanayaa 1 suuradaa lagu bilaabayaa. ya waxaa lagu bilaabayaa 1 suurad, waa suuratu yaasiin. saad waxaa lagu bilaabayaa 1 suurad, waa suuratu saad. qaaf waxaa lagu bilaabayaa 1 suurad oo waa suuratu qaaf.
nuun waxaa lagu bilaabaya hal suurad oo suuratu nuunah weeye. xuruuftaa marka waxaa weeye lagu bilaabaayo suuradaha awaa'ilkooda qaar uxaadi waaye sida saad iyo nuun oo kalentood weeye, qaarna sunaa'i waaye oo 2 weeye, qaarna waxaa weeye sulaasi weeye waa 3, qaarna rubaaci weeye waa 4, qaarna waa khumaasi kamana badna. inta khumaasiga ahoo isku daran waxaa weeye kaaf iyo cayn saad, intaas waxaa weeye waa khumaasi. waxaa weeye wax khumaasi ka badanna ma jiraan oo wax sudaasihu ma jiraan, intaas ayaa ugu badan. in markaasi cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala loo tiiriyo sidaas ayaana aslam ah oo ugu raajixsan oo aheeday dariiqatu salafu saalix, sidaas ay ahaayeen. maxaa yeela xuruufta noocaas oo xuruufulhijaa'iga cilmigooda ilaahay subxaanahu watacaala ayay u tiiri jireen. marka sidaas ayaana raajixa. warar badan oo laga sheegay oo culimmada khalafka ay ka sheegeen waa jiraan, waxaa weeye lahase yeeshee wax la isku raacay ma jiraan oo markaasi meel la isla dhigay. qaar waxay yidhahdeen waxaa weeye xaraf kasta waxuu kutusinaya isim oo ilaahay asmaa'idiisa kamida bilowgiisa u kutusinaya. qaar wax badan baa la sheegay. marka hadse yeeshee sidaas ayaa ugu raajixsan oo mar walba waxaa weeye badanaa aynu ku soconaynaa. dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala alkitaaba oo kitaabkaa laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa ma ahaanin. dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala mushaaru ilayhigu waxaa weeye waa kitaabkan qur-aanka ah. dalika kaasow dhah ilaahay ay haada alkitaabu ay ka dhigan tahay kitaabkan oo kana alladii yaqra'uhu muxamedun ow dha ilaahay oo nebi moxamed uu akrinaayo. hadda waxaa weeye kaaftaasu bucdiyay kutusinaysaa. marka hadda qur'aankana waxaa weeye annaga wuxuu noo yahay qariib ayuu noo yahay, ilaahay subxaanahu watacaala qariib ayuu u yahay. waxa markaasi waxaa weeye ishaaradan oo markaasi bucdiga loogugu ishaaray waa litacdiima layidhi, weyneyn la weyneynaayo. oo qur-aanku inkastoo qariib annaga noo yahay haddana waxaa weeye derajadiisa ayaa saraysa, qadarkiisa ayaa weyn weeye. maxaa yeele wuxuu ka nasahan yahay kalaamulxawaadis ayuu ka nasahan yahay. dalika kaasow dha ilaahay ismu ishaarahaanu mubtado weeye, laamtuna waa lilbucdi, kaaftuna waxaa weeye xarfu khitaab weeye. alkitaabuna waxay sifa u noqonaysaa ismu ishaarahaas weeye, ama waa cadfu bayaana la yidhi. jumlada laa rayba fiihina khabarkiyay noqonaysaa, taasoo xataa waxa weeye jalaaleynku u ishaaraayo. dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alkitaabu oo kitaabka oo nebi moxamed uu akrinaayo laa rayba shakiyow dha ilaahay fiihi isaga dhexdiisa ma ahan. inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu xaggiisa kasoo degay. waxaa ilaahay ku radinayaa mushrikiinta oo rasuulkeena yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam lafta mursalana yidhahdeen. waxaa kaloo yidhahdeen maxamed ayaa qur-aanka been abuurtay. mar waxay yidhahdeen inamaa yucallimuhu basharun, bashar bani aadama ayaa qur-aanka baraaya. ilaahay marka wuxuu caddaynayaa qur-aankaanu xaggiisa inuu kasoo degay. hudan ow dhah ilaahay ay haadin mid hanuuninaayo weeye. hudantaan macnaa waxay noqonaysaa haadin ayay noqonaysaa, waxaana weeye waxay noqonaysaa khabar oo labaaday noqonaysaa. hudan ow dhah ilaahay ay haadin ow dhah ilaahay mid hanuuninaayo weeye, waa rashaad iyo bayaan weeye. waxayna noqonaysaa markaasi masdar oo bimacnaa ismulfaacila weeye. hudan ay haadin ayaa la leeyahy. waxaa markaas la dhihi karaa ha la yidhi ay hudan aydu hudan hanuun mid saaxiib wey la yidhahdo, oo markaasi saas lasoo qadaro. ilahi wuxuu ihi subxaanahu watacaala hudan ay haadin waa mid hanuuninaya dha ilahi subxaanahu watacaala kitaabkaasu lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta ilahay ka cabsanaayo. qur-aankan wuxuu hanuun u yahay dha ilaahay dadka mutaqiinta asaa'iriina ila taqwa, ilaahay taqwadiisa kuwa ahaaday oo bimtisaali ilawaamiri wajtinaabi nawaahiya loola jeedaa. awaamirta ilaahay waxau fara ay fartoomeen, wixii ilaahay ka reebana way ka hareen. marka dadkaas ayaa waxaa weeye qur-aanku hanuun oo u yahay, ayaga ayaana ilaahay naartiisa ugaga dhowrsanaya. marka dadka mutaqiinta oo kitaabku hanuunka u yahay ayaa ilaahay noo sifaynaya oo dhowr sifo oo markaasi 4 gaaraysa ilahay noogu sifaynaya. markaasuu dha ilaahay aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilgaybi qaybka rumaynaya. aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilgaybi qaybka rumaynaya. waxaa ilaahay tafsiilinaya bacdu sifaati lmutaqiin weeye. waxa ayaga markaasi loogu khasisaayo sifooyinkaane waxaa weeye ayaga ayaa waxay ku sugan yihiin acla alawsaaf, awsaafta midda ugu sarraysay ku sugan yihiin. aladiina ayuu dha ilaahay mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bilgaybi qaybka rumaynaayow dha ilaahay subxaana watacaala bimaa qaaba canhum waxa ka ciilan oo baxsigii iyo jannadii iyo naarti iyo wixii lamid ah waxyaabaha markaasi samciyaadka ah oo aynu maqlayno ayaa markaasay rumaynayaan. maxaa yeele hadda jannada iyo naarta iyo qiyaamada iyo axwaalaheeda iyo waxyaabo kaloo fara badan wax indhaha aynu ku hayna maahan, oo waxaan dhigaha kaliya aanu ku maqalnay, waxyaabahaas ayay rumaysan yihiin. haddana ilaahay wuxuu dhahay wayuqiimuuna asalaata, salaada oogaayow dha ilaahay salaada ayay oogayaanoo waxay kula imaanayaan xuquuqdeeday kula imaanayaan. wa mimaa kii xaggiisa ow dha ilaahay rasaqnaahum aanu ku arsuqnane yunfiquuna way bixinayaan. haddana ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala salaada ayay oogayaan, awqaadeeda, shuruudeeda, arkaanteeda, aadaabteeday la imaanayaan. iqaamadu sidaas weeye. wixii aanu ku arsuqna wax kamidane way bixinayaanoo daacada ilaahay ku bixinayaan. xoolaha dhammaantood in la bixiyo maahane
wixii markaasi falal ah iyo wixii tadawucaba in qayb la bixiyo ayaa la doonaya waxna la reebto. haddana ilahay wuxuu yihi waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamedka ahow waa qur-aankaasa weeye. waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bimaa kii unzila ilayka laguu soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey oo kutubtii tawreed iyo injil iyo kayrkoodaba ah. wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhah ilaahay subxaanau watacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaaya ah. wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhah ilaahay subxaanau watacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaaya ah. aakhiradana waxay u rumaysan yihiin yaqiin ayay u rumaysan yihiin weye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sifaatkaa lagu soo sheegay calaa hudan hanuun korkiisa kuwa ku sugan weeye w dha ilaahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calaa hudan hanuun kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay. ilaahay wuxuu caddeeyey inay hanuunsan yihiin dadka sifaatkaa ku sifoobay. haddana ilaahay wuxuu caddaynayaa inay liibaaneen oo ay maaragtay janno ay ku liibaaneen ilaahay cadaabkiisana ay ka koraayaan. dadkii wanaagsanaayo mu'miniinta ayo mutaqiinta ahay sifaadkooda iyo ma'aalkooda ilahay markuu kasoo warramay sida ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa caadiisa ay ku dureersatay waxaa ilaahay nooga warramayaa kufaarta iyo ma'aalkooda ilahay nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay sawaaun waxaa jin ah calayhim korkooda a andartahum udigtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaanu ilaahay. ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey. ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaana watacaala kafaruu kufriyey. waktigii nabigeena alayh isalaatu wasalaam sida hadda abijahl iyo raggii kaleentoodoo kufaartii waaweynaa ayaaba kamida weeye. ina aladiina inadu xarfu tawkiid wa nasbin weeye aladiina kafaruuna isimkeedi weeye laa yu'minuuna jumladaas ana khabarkeedi weeye. jumlada sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuuna waxay noqonaysaa jumlo oo muctaridaahoo ismu ina iyo khabarkeedi kala dhex gashay saasaana ugu roon icraabta. sawaan waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda a andartahum udigtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaaya. cilmiga ilaahay waxaa ku dhaqay oo azali u sabqiya qoladaas inaysan rumayneyn. marka waxaa weye ilahay wuxuu leeyahay iimaankooda ha damcin weeye. khatamallahu alla waa daboolow dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda ilahay daboola kuwaas. ilahay qalbigooda ayuu daboolay dabci oo macnawiya ilaahay saaray khayrna geli maayo. wa calaa samcihim maqalkooda ayaa ilaahay daboolay. wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay waa daboolay. mawaadicda ayaa loola jeedaa samcigo waxa weeye maqalkooda ku intifaaca maayaan oo xaqa kuma dhegaysanayaan. wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda korkoodane kishaawatun daboolla ayaa ah. wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda kishaawatun daboolla ayaa ah. oo waxa weeye araggoodana daboollo macnawiya ayaa ilaahay saaray oo xaqa ku arki maayaan. acdaadaas oo ilaahay uuna siiyey oo qaaliga ah mar haddii waxa weeye sidii ilaahay ha loo sarfiyo uu yidhi aan loo sarfin oo markaasi waxa weeye aan lagu intifaacaynin waxay ka dhigan yihiin shay macduum oo kale ay ka dhigan yihiin. walahum waxaa usugnaadow dhah ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaas waa cadiimun oo weyn. oo waxa weeye mar hadday sidaa ay yihiin ay ku sifoobeen sifaatkaas foosha xune waxay iska leeyihiin buu dhaha ilahi subxaana watacaala cadaab cadiima ayay iska leeyihin u dha ilahi subxana watacaala. waana in markaasi cadaabku waxa weeye isaalul aalaamiyaa la yidhahdaa lilxayawaani calaa wajhi lhawaana la yidhaha. cadaab waxaa la yidhaha sidiisaba xanuun oo markaasi la gaarsiiye xayawaanka ayadoo lagu ihaanaysanayo. marka waxa weeye cadaab oo lagu ihaanayso ayay gelayaan u dhaha ilahi subxaana watacaala qolada oo sidaa ku sifowday. cadaab oo qawiya oo daa'ima weeye. wa min annaasi dadka waxaa kamid ah u dha ilaahay man duul yaquulu dhahaaya aamanaa waanu rumaynay bilaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyawmi yoomkiina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal ayayna sidaas leeyihiin maahum aysan ahaynin bimu'miniina kuwa rumeeyey ayuu dhah ilaahay. ilaahay subxaana watacaala markii uu noogaga soo warramay mu'miniintii oo waxa weeye daahir iyo baatinba iimaanka iska lahay kufaarti waxa weeye kufrigoodu daahir iyo baatin waay markuu nooga soo warramay qaybtan saddexaad ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaar oo waxa weeye daahirka waxa weeye mu'miniinka ah baatinkana kufaarka ah. kufaar oo baatinka kufaarka ah daahirkana iimaan ka sheeganaya oo munaafiqiin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya. axwaashooda ayaa ilahay nooga warramaya iyo markaasi dulliga ku dhacaaya iyo ilaahay subxaana watacaala sida u jaasinaayo miisaalka la yeelaayo amarkooda ciibtiisu si ay noqonayso. waxaana loogaga warramayaa 13 aayadood oo aayad ugu dambaysta ilaahay uu dhihi doono in allaha calaa kulli shayin qadiir ay ku dhamaataa. ilahay waxau ka akriray mu'miniinta iyo kufaarta daahir iyo baatinba ah. oo mu'miniinta daahir iyo baatin ilaahay rumeeyey iyo kufaarta daahir iyo baatin ilahay ku kufriyey ayaa dib looga dhigay. waxaa la ishaaraha la yidhi ayaga ayaa ka xaalad xumaa la yidhi kufaarta caadiga ah. maxaa yeelay sida hadda idnaabka loogu samaynayo ayaad garanaysaa oo markaasi loo badinaayo sifaadkooda cadaabkoodana ilaahay ugaga warrami doono sifaadkooda xuna loo sheegaayo. ilahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa kamid ah man duul yaquulu ku qawlaaya aamanaa billahi ilaahi ayaanu rumaynay wa bilyawmi yoomkiina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal maahum aysan ahayn o dha ilahay bimumina kuwa rumeeyey aysan ahayn. marka hadda iimaan la yska sheegto ilaahay agtiisana aan saxiix ka ahayn waxba tari maayo.
yuqaadicuuna allaha alla ayay khadeecayaan ilaahayay dhagraayaan ow dhah ilaahay sida markaasi ayaga ay la tahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay khadeecayaan ow dha ilaahay maxaa yeele waxay daahirsanayaan biidhaari khilaaf maa abdanuuhu weeye min alkufri weeye waxay daahirsanayaan waxyaabaha ay qarinayaan wax markaasi waxa weeye khilaafsan oo kufriga si waxa weeye axkaamta oo dunyawiyada ay isagaga daafacaan wamaa yukhaadicuuna ma dhagraayaan ow dha ilaahay oo ma khadeecayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo khadaacadaasu naftooday ku dhacaysaa khadaacadaas lianna wabaala khadaacihim raajicun ilayhim waxa weeye dhagartoodaas baaska ka yimaado ayaga ayuu kusoo noqonayaa adduunyada ayay ku falleexoobayaan oo ilaahay rasuulkiisa ayuu dhaalacsiinaya wax ay qarinayaan markaasa adduunyada lagu falleexaynayo sida dhacday aakhirana waa lagu ciqaabaya wamaa yashcuruuna masa garanaayaan ow dha ilaahay oo ma ogsoona khadaacaas ay samaynayaan inuu naftooda ku dhacaayo ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fii quluubihim ow dha ilaahay kuwaas laabtooda waxaa ahaadow dha ilaahay maradun bushi ayaa ahaaday fii quluubihim laabtooda ow dha ilaahay subxaana wa tacaala maradun bushi ayaa ahaaday shaki iyo munaafiqnimo ayaa qalbiga uga jira weeye markaasuu wuxuu jiriyey quluubtooda ayuu jiriyey oo uu laciifiyey fazaadahum ullahu dabeedna alla wuxuu u ziyaadiyey ow dha ilaahay maradan maral ayuu ilaahay u ziyaadiyey walahum waxaana usugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yadibuuna kuwa been sheego qowlkooda ku been sheegay ahaadeen hadda maralkan waxaa la yidhi waxaa lagu idlaaqaa midka xisiga xisiga marka lagu idlaaqo waxa weeye waa markaasi midka la yaqaano cudur loo jeeda ah weeye midka macnawigana waa lagu idlaaqa oo shakiga iyo munaafiqnimada weeye waxaan shaki lahayn ba la yidhi nimanka munaafiqiinta qulubtooda labadaas maralba waa ku jira midka xisiga iyo midka macnawiga la yidhi maxaa yeele midka macnawiga ayaa hadda ku jira laakiin sabab wuxuu u noqonayaa mid xisiya ayuu macno u noqonaya oo sabab u noqonaya maxaa yeele arrintaas munaafiqnimadaahu maral oo xisiyay gaarsiinaysaa adduunyadana waa lagu falleexaynaya aakhirana waa lagu cadaabaya marka ilaahay waxau dhahay alla maral ayuu u ziyaadiyey maralku wuxuu ugu ziyaadayaa qur'aanka markaasi soo degaaya oo kufrigooda ka warramaayo cadaab aliimana aakhiri iska leeyihin ow dha ilaahay sababtuna waxaa weeye inay ku been sheegeen hadalkooda ay dhahayeen aamanaa waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fi larli akhladaha fasahaadina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta maayne naxnu anagu muslixuuna kuwa hagaajinayana arladan fasahaadka ka daaya markii la yidhahdo waxay leeyihin anagu muslixiinana waidaa waktigii qiila lahum loo yidhahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fi larli dhulka dhexdiisa oo kufriga ka daaya iyo dadka iimaanka aad ka sarfinaysiin qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta maayne naxnu anagu muslixuuna kuwa hagaajinayana walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin waxaan ku sugannaha fasahaad maahan ilahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay abaal tambiih weeye baraarugay ayuu dha ilaahay inahum ayagu hum lmufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya way fasahaadinayaan arladow dha ilaahay walaakin kalkeeda laa yashcuruuna ma garanayaan fasahaad inay wadaan maxaa yeele dadka mufsidiintaahu waxa ay wadaanba ma fahmaayaan waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay aaminuu rumeeya kama aamana naasu dadku siday u rumaynayaan oo asxaabta nabiga alayhi salaatu wasalaam siday u rumaynayaan kala u rumeeya markii la yidhahdo qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana sufahaau kuwa juhaaladaah ay u rumaynayaan asxaabta ayay ku wadaan rasuulka alayhi salatu salam asxaabtiisay ku wadaan qaaluu waxay leeyihiin ayagoo inkiraya warkaa la yidhi anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau kuwa juhaaladaah siday u rumaynayaan ma falayna ficilkooda oo kale ay leeyihin ilahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay inahum ayagu hum sufahaau kuwa sufahaa weeye ayagaa sufahaa jaahiliina weeye markay dadka jahli ay ku sheegayaan ayagaa sufaha ah walaakin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoona maxaale dad badanoo waxaa jira dadka inuuna wax garan u arkaayo isaguna waxba aanan garanin waidaa waktigii laquu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin aamanaa waanu rumaynay waidaa waktigii laquu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay aamanaa waan rumaynay dadka mu'miniinta markay la kulmaan iimaan ayay u sheeganayaan waxaa kamid ahay raggaas cabdullahi ubay bnu salool iyaa kamid ahay weeye markay ragga asxaabtaa la kulmaan ayay markaasi wanaag u sheegi jireen sabab nuzuulka aayaddan abubakar iyo cumar iyo cali ayaa waxay aadeen cabdullahi ubay bnu salool lacanahu llahu markaasaa abubakar waxau dhahay war adiga iyo asxaabtaadu kaalaya ee ikhlaas sameeya markaasuu waxau dhahay marxaban bishaykhi wasidiiq cumarna waxau dhahay marxaban bilfaaruqi alqawiyi fi diini sayid calina marxaban yabna cami nabiy ayuu dhahay war fiican markaasaa sayid cali waxau dhahay war ilahay ka cabsou dhahay munaafiqnimada iska daaw dhahay warkaan been ku sheegi mayside markaasuu wa dhahay warkaas anigu uma dhihin ilaa waxaa weye inuu iimaankaygu iimaankiinoo kala yahay mooyaane marka wararkaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku beeninaya qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan oo waxa weeye dadka mu'miniinta ay ka tagaan kuwa markaasi waxa weeye ay u tagaan shayaadiintooda hor ru'asadaane waxay leeyihin sidaan ow dha ilaahay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintooda ay u khaali noqdaan qaaluu waxay leeyihin inaa anagu macakum micigiinaan nahay idinkaan idinla jirnaa oo diinta idin kala mid nahay inamaa in kaleeta maayne naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjees ayaan ahayn qoladaas markaan iimaanka u sheeganayna waanu ku jeesjeesaynay
ilahay wuxuu yihi allahu alle ayaa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaaya ilahay kiisuu jaasin waaye istisaa xaqiiqiisa ilahay waa ka nasahan yahay allahu alle yastahzi'u bihim waa ku jaasinaya istisahooda wayamuduhum alla waa u koranayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan yacmahuuna xaalihin kuwa wareersan ayagoo xadgudbaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugayaa wayamuduhum owdha ilaahay alla waa u koranayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan oo ayagoo baadilkaas ku dhex jira ayaa loo kaadinayaa cumrigaa loo dheeraynayaa awlaadaa loo badinayaa risqiga ayaa loo siyaadinayaa waxa weeye caafimaad ayaa la siinayaa sidaas iyagoo ah ayaa sidaas markaasa waxa weeye loo tabaansabayaa yacmahuuna xaalayihin kuwa wareersan owdha ilaahay oo mutaradidiin oon meelna aanan ku sugnaynin ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala aladiina kuwa weyow dha ilaahay ishtarawu dalaalata baahida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisaw dha ilaahay qoladan munaafiqiinta alle wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye ishtarawu dalaalata baahida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisa baadan baa ulbadeliye ayaa la yidhaha waxa weeye hanuunkii ayay ina qaadeen ayay waxay kusoo iibsadeen baadi bay kusoo iibsadeen waxaa laga dhigayaa markaasi lagu shabaha shiraha xaqiiqigaa weye maxaa yeele hanuunkii bay ka tageen markaasay baahidi qaateen markaa dee baahida ay soo gateen maxay tahay ilahay wuxuu yihi famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratun tijaaradoodii ma aysan ribxin o ilaahay famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratun tijaaradoodii ilaan wax markii lasoo shiraysto waxaa markaasi la raadiyaa ribix baa la raadiyaa nimankaa mar haddii waxa weeye baadidii ay waxa weeye hanuunka kusoo iibsadeen oy baahidii waxa weeye ay soo qaateen hanuunkiina iska bixiyeen ribax meeshaas kama isilin owdha ilaahay marka hadda isnaadu ribxi litijaara waxaa la yidhi majaas oo caqliya waaye ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratun tijaaradoodu ma aysan ribxin maa rabixuu fiiha weye bal khasiro way khasaareen maxaa yeele limasirihim ila naari lmu'abadati calayhim naar oo weligood ay ku jiraan ay ahaanayaan qof waxa weeye wax naar oo ku jiraayo weligiis waxa weeye qaatay oo markaasi jannadii ka tegey hadda xaggee waxa weeye khasaare mid ugu xumeed ayuu khasaaray wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu dhahay ilahi subxaana watacaala muhtadiina kuwa hanuunaa ma aysan ahaanin waxyaabaha markaasi ay faleen wax ay ku hanuuneen ma ahan buu dhahay ilahi subxana watacaala oo hidaayadine ilaahay subxaana watacaala ayaa ka sarfiyey hadda waxa weeye hidaayadii hadday kusoo iibsadeen baadine waxa weeye khasaare ayay kala kulmeen famaa rabixa tijaaratuhum way tijaaradoodii ma aysan ribxin owdha ilaahay maa rabixuu fiiha kuma aysan ribxin bal khasiroo way khasaareen maxaa yeele ribix markii la waayey maxalidkiisa khasaaro munaafiqiinta marka khasaare ayaa ku dhacday naar weligood ay ku jiraayaan ayayna ahaanayaan markaasuu dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin oo ilaahay daacadiisa kuma aysan hanuunin hidaayadana waxaa u diiday ficilkaas hoosha xune oo ay samaynayaan iyo waxyaabahaas beentahay ku dhaqmaayaan ayaa waxay u keentay aysan hanuunin masaluhum munaafiqiinta sifadoodaw dhah ilaahay ka masali ladii kii sifadiisa waa la too ayuu dhah ilaahay istawqada huriyey naaran dab huriyow dhah ilaahay falamaa goortii alla-ad ay ifisa naartiyow dhah ilaahay maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaaday dahaballaahu alla uu la tegey binuurihim nuurkoodii uu la tegey wa tarakahum alla uu ka tegey fii dulumaatin mugdiyaala dhexooda ugaga tegey laa yubsiruuna ayagoon waxba arkaynin ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu wa tacaala summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay bukmun waa kuwa afla cumyun waa kuwa indhalla ayuu dhah ilaahay fahum ayagu laa yarjicuuna ma soo noqonayaan buu dhah ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxaynu ku soo jirnay sifaadkii munaafiqiinta ayaynu ku soo jirnay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo yidhi kuwaas waa kuwa shiraysay baadida oo hanuunka ku beddel qaatay tijaaradooduna ma aysan ribxin buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mana aysan ahaanin kuwa hanuuna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka meeshan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelayaa munaafiqiinta masal ayaa ilaahay u yeelayaa masal ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelayaa nifaaqooda ugu masal ah marka ilaahay markuu soo caddeeyey qabaa'ixdoodii iyo amarkooda ciribtiisu sida uu ahaanayo waxaa halkan uu ka gudagelayaa inuu amhaal uu u sameeyo waxaana ilaahay amhaashaas uu ku caddaynayaa sifadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin ayaa ilaahay ku caddaynayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masaluhum masalkoodaw dha ilaahay sifatuhum fii nifaaqihim weeye sifadooda oo munaafiqnimada ugu sifo ah ka masili ladii ka sifati ladii kii sifadiisii waa la too ayuu dha ilaahay istawqada huriyey ayuu dha ilaahay naaran dab huriyey waxau lamid yihiin buu dhah ilaahay munaafiqiintu nin meel mugdiyo jooga wakti oo waxaa weeye roob uu da-ayo rooba baw-a meel mugdiyo jooga oo dab hursaday dabkina waxaa weeye markaasi oo u iftiimay falamaa goortii ayuu dhah ilaahay alla-ad naarti ay hurisay maa xawlahu hareerihiisa wixii ahay oo wax uu arkaday dabkina uu dugsaday ou kulaalay wixii uu ka cabsanayna uu ka nabad galay
dahaba allaahu alla uu la tegow dha ilaahay binuurihim nuurkoodi uu la tegey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurka uu ka demiyey. hadda meeshaan lamiirka waa la jamciyaa layidhi, waxaa la ilaalinayaa mawsuulka macnihiisa ayaa la ilaalinayaa. dahaba allaahu alla waa la tegayow dha ilaahay binuurihim nuurkoodii, oo markaasi mawsuulkii alladiida ahay ayaa waxaa la soo qaatay macnihiisiyaa la soo qaatay. wa tarakahum alla waa ka tegey buu dha ilaahay fii dulumaatin mugdiyaale ayuu ugaga tegey laa yubsiruuna ayagoon arkaynin waxa hareerahooda oo mutaxayiriin ahoo waleersan oo waddadii ka lunsan haddana khaa'ifiin ah oo wixii dabka u kordhiyey oo faa'iidaha ay ka heleen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday. marka waxaa la leeyahay munaafiqiintu waxay la mid yihiin kuwa noocaasa ayay la mid yihiin, kuwa waxa weeye ayagoo mugdiga jooga dabka horsaday ee markii waxa weeye dabkii meel walba uu ifiyey oo ay wax arkeen oo ay dugsadeen oo ay ku nabad galeen, markaas ilaahay dabka uu ka demiyey. munaafiqiintu kuwaas ayay la mid yihiin oo ilaahay uu ku shabahayaa. waxayna ula mid yihiin baa layidhi, horta munaafiqiintu waxa weeye iimaan daahira ayay sheegteen oo waxay ku dhawaaqeen kelimatuliimaan. taasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye dabkii oo iftiimay oo kaleentood weeye. marka dabkii marka uu iftiimay oo wax walba ay ku arkeen iimaankaas ay daahirsanayaan ayaa lagu shabahayaa. markaan dabka ilaahay uu kala tegaayo oo mugdiyaalo ay ku soo harayaan ayagoon wax arkayne, waxaa lagu shabahayaa xaaladooda qiyaamo siday noqonayso oo markii ay dhintaana layidhi waxaa u imaanaya khawf iyo cadaab ayaa u imaanaya. khawfka iyo cadaabka u imaanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa waxa weeye dabkaas nimankaa lagala tegey ee iftiinkii uu ka baaba'ay ee wixii markii hore ay heleen laga qaaday oo wixii xumaanahay iyo dhibka ay ka baqayen dib ugu soo laabtay. maxaa yeele munaafiqiinta adduunka markay iimaankooda kusaas ugu nabad galaan oy dhiiggooda maalkooda ku ilaaliyaan, maalinta qiyaamo ayay runtii arrintu imaanaysaa, kolkaasay cadaabka ilahay la kulmayaan. haddana ilaahay wuxuu yidhi summuntaanu waa khabar mubtadiisa uu maxduuf yahaye, hum ayagoo ayuu dhah ilaahay summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay, waxay ka maqal la'yihiin xaqa inay dhegaystaan simaaca qabuulin. bugmun waa kuwa afla ayuu dhah ilaahay oo kharsi ayaa ku jira, khayrka ayay ka af la'yihiin oo khayrka kuma qawlayaan, waxay ka dhigan yihiin ruux akhras oo kaleentood. cumyun waa kuwa indhala ayuu dhah ilaahay oo dariiqa hanuunka ayay ka indha la'yihiin, dariiqa hanuunkana ma arkaayaan. fahum ayagoo ayuu dhah ilaahay laa yarjicuuna ma laabanayaan oo baayida ay ku sugan yihin ka soo laaban mayaan. haddana ilaahay wuxuu yidhi ow ka sayibin ow ambasa ayuu dhah haddana ilaahay masaluhum usoo qadaro masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa la too ayuu dhah ilaahay. hadda waxaa weeye tashbiihan kale isagana waanu sheegaynaa. ow ambasa ayuu dhah ilaahay masaluhum masalkoodu ka sayibin ey ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa la too. dad waxaa weeye roob uu ku da'aayo ayay la mid yihiin buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala. ka asxaabi madarin waa la too ayuu dhah ilaahay. madarkaasoo yanzilu ku soo qadaro ka soo degaya min asamaa'i, samada ka soo degaaya oo saxaabka ka soo degaaya. fiihi saxaabkaas dhexdiisana dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin, iyo wa racdun ayuu dhah ilaahay gugac ambase onkod, iyo wa barqun hilaac ow dhah ilaahay lamcaanka markaasi ka soo baxaayo weeye. yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay qolada asxaabu sayibkaahu asaabicahum farahooda ayay yeelayaan, fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan. waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda ka cabsasheeda daraaddeeda u dhah ilaahay. min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda, sawaacida dhacayso onkodkaada ayay dhegaha farta gelinayaan saysan waxa weeye u maqlin. waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay xadaralmowti liajli xadaralmowti, mowtka digtoonaashadiisa daraaddiisa u dhah ilaahay. wallaahu allow dhah ilaahay muxiidun kii kooba weeye alle, cilmi iyo qudro ayaa ilaahay ku koobay bilkaafiriina kaafiriinta. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinti wuxuu ku shabahayaa dad waxa weeye roob ou maaragtay ku da'aayo. marka dadkaa roobka ku da'ayana roobka waxa weeye waxay ka helayaan gugac ama maaragtay hilaac ayaa roobka ka dhacaya. gugac waa ka dhacaya, hilaac waa ka dhacaya. gugaca onkodna waa loo yaqaanaa. barqiga waxa weeye isagun hilaac weye ama biriqda caadiga oo la arkaayo weye. dad sidaas ku sugan ayaa lagu shabahayaa haddana kufaarta weye. marka hadda waxa loogu shabahaya waxa weeye baa layidhi oo mushabbaha iyo mushabbahu bihi uu noqonayaa. ilan tashbiih waxa uu keenayaa mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo wajhu shabah iyo adaatu tashbiih ayaa meesha ka imaanaysa. marka hadda qoladan munaafiqiinta waxaa layidhi qur'aanku markuu soo dego, qur'aankana waxa weeye lagu sheego kufri lagu sheegaa layidhi oo markaasi lagu shabahayo dulumaadka. qur'aanka waxaa lagu shabahayaa isaga madarkaa lagu shabahayaa. kufriga lagu sheegaayana waxaa lagu shabaha qur'aanka dulumaadka lagu sheegaayana oo waxa weeye madarka dulumaadka lagu sheegaayo waxaa weeye madarka mugdiyaa ku jira.
waxaa lagu shabahayaa kufriga ayaa lagu shabahayaa. waciidka markaasi qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa isagana racdigaa lagu shabahayaa. xujooyinka cadcad oo qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa hilaacaa lagu shabahayaa. marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhegahooda ayay owdayaan si aysan u maqlin onkodkaas aysan u maqlin. macnaha waxaa laga wadaa qur-aankii bay dhegaha ka qabsanayaan oo simaaca qabin u dhegaysamayaan. maxaa yeele waxay ka baqayaan iimaanka inay u iishaan oo diinkooda baadilka ay ka tagaan, kaasoo waxa weeye ayaga agtooda mawdka ah. xadaral mawti marka leeyahane ayaga diinkoodoo ay ka tagaan ayaa agtooda dhimasho ka ah. marka haddii aan tashbiihan wax yar aanu ku celinno waxa uu noqonayaa qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku shabahayaa madarkuu ku shabahayaa. waxa weeye kufriga qur-aanka lagu sheegaayane ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku shabahayaa dulumaadka madarka ku jira. waciidka qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa racdiga ayuu ku shabahayaa gugaca amba onkodka. xujooyinka oo cadcad oo qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa hilaac ayuu ku shabahayaa. mawdkana waxaa lagu shabahayaa dhegaha ay ka qabsanayaan qur-aanka, waxay markaasi ka baqaayaan qur-aanka inay u iisho qalbigoodu oy diintooda baadilka ay ka tagaan. markaasuu dha ilaahay ow amase masaluhu masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dha ilaahay. madarkaasoo min asamaa'i yanzilu min asamaa'i saxaabka ka soo degaaya, fiihi saxaabkaasna dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin, iyo wa racdun gugac ayuu dhah ilaahay ama onkod malagga loo wakiisho weeye ama waa sawdkiisa, laakiin bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suuratu racdi insha allahu tacaala. iyo wa barqun hilaacow dhah ilaahay. yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay asxaabu sayibkaasu asaabicahum farahooda, macnaha anaamusha ayaa laga wadaa, fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda, onkodka waxaas ka dhacaaya, xadaral mawti liajli xadaral mawti mawdka cabsashiisa daraaddiis. mawd ayay ka digtoon yihiin weeye. wallaahu allow dha ilaahay muxiidun alhii koobay weeye bilkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa koobay oo cilmi iyo qudro ayuu ku koobay, ilaahayna ka baxsan ma karaan. haddana ilaahay wuxuu yidhi yakaadulbarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dafo absaarahum aragyaashooru. hilaacaas wuxuu sigayaa inuu aragga ka dafo oo si surca uu ku qaado. kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan, iftiinkiisay ku soconayaan. kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan buu dhah ilaahay. waidaa watigii adlama uu mugdiyaabo calayhim korkooda uu ka mugdiyaabo hilaacune qaamuu way istaagayaan buu dhah ilaahay. aayaddan dambana waxa weeye waxaa tamsiil looga dhigayaa sida nimankaanu qur-aanka waxa ku jira ay ugaga baqayaan oo waxa weeye qalbigooda ilaahay xijaabka u saaray oo qalbiga looga daboolay. haddana ay u rumaynayaan markii ay maqlaan waxyaabo ayagu ay jecel yihiin. maxaa yeele qur'aanka waxaa soo gelaya waxyaabo adduunyo iyo waxyaabahaas ka sheekaynaya. maxaa yeele qur-aanku wuxuu koobayaa adduunyo iyo aakhire ayuu koobayaa, oo adduunyo iyo dan aakhiraha ku jirta. marka waxaa laga dhigayaa marka waxa weeye ay ka baqayaan inuu aragga uu ka dafo, waa markii waxa weeye qur-aanka waciid iyo waxyaabo ayaga naftooda jecleen lagu sheego weye. marka ilaahay uu leeyahay kulamaa allah allahu mashow fiihine waxa weeye waa marka oo qur-aanka walax ayagu ay jecel yihiin oo dana adduunyaha lagu sheego. waidaa adlama calayhim qaamuune waa markii waxa weeye qur-aanka markaasi meel uu gaaro ayaga dantooda aysan ku sugnayn. ilahay wuxuu yidhi walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu la tegi lahay biabsaarihim araggooda ayuu la tegi lahay, oo ilaahay subxaana wa tacaala samciga caadiga oo maaragtay xisiga ayuu alla ka qaadi lahay, iyo wa absaarihim aragyaashoodaw dha ilaahay. walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu kala tegi lahay alle bisamcihim maqalkoodaw dha ilaahay, macnaha asmaacda weye, iyo wa absaarihim aragyaashooda daahirkaa weye. sida macnaha kamaa dahaba bilbaadini weye, kamaa dahaba bilbaadinati weye, tii baadinka aheeday basiiradii oo baadinka aheed sida alla uga qaaday ayaa ilaahay midda xisigan uga qaadi karaa w dha ilaahay. maxaa yeelow dha ilaahay ina allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa ou doono qadiirun alihi kara weye. ina allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alihi kara weye. waxaana lamid ah oo ka mid a waxyaabaha hadda la soo sheegay alla inuu ka qaado, oo samciga iyo basarka xisiga alla inuu ka qaado ayuu alla awood u leeyahay. yaa ayuhannaasu dad yahabow, yaa ayuhannaasu dad yahabow ucbuduu caabuda ayuu dhah ilaahay rabbakum rabbigiina caabuda. hadda aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mukallafiinta ayuu kula khidaabayaa. waxaa la yidhi qur-aanka ilaahay kuma naadin baa la yidhi yaa nidahaasu min allaahi ha ka ahaaday licibaadihi aw minhum lilaahi baa la yidhi, waxayna u sugnaataa lilnidaa'i albaciidaa la yidhi. marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ahaaday inaan shay isaga shabahaynin oo xawaadisa,
allana uu ka nasahan yahay xawaadista inuu markaasi uu shabaho daatada iyo sifaadka iyo afcaasha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku naadinayaa yaa wuxuuna sidaa ilaahay u yeelayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xisi oo maaragtay yaa macnaw waxaan dhihi lahay bucdi oo macnawiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay yaa uu naga fog yahay marka ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu dad yahabo ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa yidhi niduhu waxa weeye 7 u qaysamaya nidaa oo markaas nida la yidhaha nidaa'u tanbiih maca madxin weeye sida yaa ayuha nabiyu marka ilahay nabigiisa leeyahay amase waxa weeye nidaa'u tanbiih maca dami weeye sida yaa ayuha aladiina haaduu amase tanbiih oo maxliya sida yaa ayuha alinsaanu ama markaasi mid oo idaafa sida yaa cibaadiye ama mid nisba ah sida yaa nisaa nabiy ama mid oo tasmiya sida yaa daawuudu amase mid takhsiisa sida yaa ahlalkitaabi oo waxa weeye niduhu 7daas ay u qaybsamaha leeydi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dad yahabow waxay markaasi kutubta ku fasireen ahlu maka ayaa loola jeedaa inkastoo hadda suuraddaanu ay suurad madaniya ay tahay laakiin jamiicu almukallafiin oo dhan ayaa loo naadinaya ha layidhi maxaa yeele siyaaqa dambe ayaad ka fahmaysaa ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dad yahabow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda ilaahay rabbigiina waxida weeye alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala meel cadama ayuu idinka ehaysiiyey والذين وخلق الذين كونا أبوروا إلهي من قبلكم إذن كورتين هذا عليه مال عدم إذن كأبوري ذاتك إذن كإذن كوري أمة محمد كوريين أبوري وعدم إذن كولا أبوري الله هاس عبود أيوه إلهي لعلكم محمدين حقيقة إلهي تتقون إنها توصنا إيسان والله أتكبقي يسين مركي إلهي سبحانه وتعالى عبايس الله تمادان لعل ذا قرآن كإيه حديثة وحوية حقيقة وي في مركز عربية ولعل لتلجي والتوقع ما هوي معايا لهدي عبسي إلهي للي مادو أو عبادة الله للي مادو وحا إيمانيسا إن مارتي عبادة أي نقطة من حقيقة وي أدي مارتي الله لعابدو وحا إيماني مركز التقوى دانيس مركز سودة إلهي الذي الله سو جعل لكم الأرض جعل بمعنى خلق وي جعل لكم الأرض أرض إذين أبو رود إلهي فراشا حال أي تأتيق قوله سيدنا وين لو دي كرهالي جعل لكم إذن كغيالي الأرض فراشا قوله إذن كغيالي والسماء صمدنا بناء سانقاف إذن كغيالي محايلا وحوية السمد أرض أي سقف أطهي وأنزل دجيونا هدنا إلهي سبحانه وتعالى من السماء السمد حقيقة ما أن مدر كسود دجيه وأنزل دجيه من السماء السمد ما أن مدر كسود دجيه فأخرج دبيدنا سبب بحيي به بسبب الماء ماء سبب كيس إلهي السمد وككيني الثمرات من ريالك سبب بحيي فأخرج دبيدنا به بسبب الماء الثمرات من ريالك سبب بحيي رزقا أرزق الدرادة والله كم إذنك ليدن أرزقها أذنك أيال ليدن أرزقها هودا إلهي أدنا وحوية دوابتينني وحوية أرلاد أسكصوب بحي آياتك عالفينيسين فلا تجعلوها أويلنا ودا إلهي لله الله أندادا شركها أويلنا إلهي سبحانه وتعالى وحلا قرب لغو وعبادة لولا واجية أويلنا ودا إلهي فلا تجعلوها يلنا لله الله أندادا شركها أويلنا معايا الله وحو صدعي اعبدوا ربكم وي ربينا عابدا مركا الله نواء الله صفاتك كسفوي مركا غير كيس عبادة ما متيسكره والحال أنتم إذنكم تعلمون أدوكسونتهين الله إنه يهمتك خالقا وحاوية أصنامت عابدا يسان دي لقوة مثلا وكفارتنا إلهي وحوليه وحمع وأبوري كران وحا يسمي كران مجرد مركا وحا أبوري كران وحلا عابدا ما هنه الله يسوح أبورايا oo sifada sifatul kamalka ku sifoobay isagaas aabuday ayuu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala shariigna ha u sameeyna wa in kuntum hadad ahaateena u dhahay ilaahay kufaaray ayuu dhahay ilaahay fi raybin shakki kuwa ku sugan mimma fi xaqiisana uga sugan nazalna aanu dejinay ala abdina adoonkayna nabi maxamed alayhi salatu wasalam aan ku dejinay oo quraankaasa oo ka shakisantihiin quraanku ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday wa in kuntum hadad ahaateen fi raybin shakki kuwa ku sugan مما في حقيسا وأسوغا نزلنا أن نكسو دجنا على عبدنا أدون كينا فأتوا لك علي ود إلهي بصورة لك علي أو من مثله قرآن كمثل كيسا قرآن كوح مثل كيسا أو صورة لمدة كان أيودا إلهي سبحانه وتعالى مركا هذا منتا وحوية للبيان ويه وح مثل كيسا حاجة بلاغذا هي النظم جوانا كيسا هي أخبار تغيب كلاقوا رمايو وح لمدة كان ويه هذا صورة دانو صورة أو قرآن هو قرآن ما هم باليري محايا الصورة وحالي هذا qayb oo markaasi aayado ah suurad bay noqonayaan waxaana ugu yar baalay 3 aayadood xataa suurad waa la dhihi karaa marka hadda meeshan suuro oo luqawiya ayaa loola jeedaa hada waxa weeye xaraf quraanka kamidane inta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo xuduudahu u sameeyay
qur-aanka xaggiisa oo intaasba ka caajiseen waa inoo imaanayaan wadcuu u yeerow dhah ilaahay shuhadaa'akum shuhadadiina u yeera shuhadada waxaa laga wadaa aalihadiina wadcuu u yeerow dhah ilaahay mushrikiinow shuhadaa'akum aalihadiina u yeera aad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa si waxa weeye ay idinkuu kaalmeeyaan oo waxa weeye qayb aayada ah ama suurad ah oo qur-aanka ay idinla keenaan oo idinkuu kaalmeeyaan in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaaya haddaad run ku sheegaysaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankan inuu isagu naftiisa ka samaystay arrintaas sameeyaa layidhi maxaa yeele meesha waxaa ku jirta oo la leeyahay fa innakum carabiyuuna fusaxaa'a mislahu idinkuba waxaa tiin baa leeyahay dad carab ah oo fusaxo ah oo nabigoo kale maaragtay fusaxada saas ku ahaatiin marka haddaan qur-aankaanu xag ilaahay uusan ka ahaanin carab fusaxaa idinkuba tiina keena ayaa leeyahay maxaa yeele hadda waxay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan mucjiska hoo la siiyey mucjisooyinka markaasi waaweyn ayuu maaragtay ka mid yahay mucjisada nabiga la siiyey waxaa u weyn qur-aanka ayaa ugu weyn marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen rasuul walba markii la soo bixiyo waxaa la sii jiray shay mucjiso ah oo waktigaas waxa la xiiseeyo waxa markaasi waxa weeye ugu sarreeyo ah maxaa yeele hadda masalama nebiyullaahi muusa markii la soo bixinaayey waxa weeye waktigaas sixirka ayaa waxa weeye wax lagu faano oo maqaam la ayaa ahay baa layidhi sixirka ayaa wax maqaam la ahay marka waxaa la siiyey say sixirka shabaha oo ka awood badiyey nebiyullaahi ciisa waktigiisii cilmiga cilmudibiga oo markaasi dhakhtarnimada ayaa horumar gaartaa layidhi marka cudurro ay ka caajiseen dadkii adibada ahay ayaa inuu bogsiyaa ilaahay uu siiyey rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam waktigiisa fusaxada ayaa lagu faani jiray oo carabtu xagga fasaaxaday ku faani jireen fasaaxada markay ku faani jireen ayaa qur'aankan oo ka sara maray fasaaxadoodii ayaa nabiga la siiyey marka sidaas ayaa waxa weeye loo leeyahay wax lamida keena ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala markay arrintaa ka caajiseen fain lam tafcaluu haddaydaan falina waxa la soo sheegay oo aad caajiseen fain lam tafcaluu haddaydaan falina lamtaani waxay anfinaysaa wixii markaasi maadii hoo tegey maxaa yeele markaan hadda hadalkaani leeyahay ka hor ma aysan samayn walan tafcaluu faliba maysaan ayuu dha ilaahay oo mustaqbalkani inaad keentaan rijo lagama qabo oo lamtuna waxay anfinaysaa wixii maaliya lantuna waxay anfinaysaa wixii mustaqbala marka marnaba inaysan arrintaas horu nagu suurtogelin hadda inaysan ka suurtogelin baa ilaahay sheegaya saa hadday jirtow dha ilaahay oo horena u sameyn haddaan sameeyhayna fattaquu cabsadow dha ilaahay oo waxa weeye inaad alla rumaysaan la imaada weye fattaquu dhowrsada ayuu dhah ilaahay annaara naarti ka dhowrsada dhowrsiba naar looga dhowrsan kara waa in alla la rumeeyo iyo rasuulkiisa calayhi salatu wasalaam fattaquu ka dhowrsadow dha ilaahay annaara naarti allatii naartaasoo waquuduhaa kan lagu hurinaayo annaasu dadka u yahay dadkuna waxa weeye waa kufaarta weye iyo walxijaaratu dhagxaantow dha ilaahay dhagxaantuna waa asnaamtay caabudi jireen naartaas ka dhowrsadow taasaa idin hursane naartaasoo ucidda loo diyaariyow dha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta loo diyaariyow dha ilaahay marka hadda ilaahay subxaana watacaala markuu ka soo warramay kufaartii iyo maaragtay sifaadkoodii iyo ma'aalkoodii caadada qur-aanka ilaahay waxay ku direesatay inuu maaragtay dadka muuminiinta waxa ku tacalluqa iyo maaragtay amarkooda ciribtiisa uu ka warramo marka ilaahay wuxuu yidhi wabashir u bishaareyow dha ilaahay u khabar aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban acmaasha saalixada furuud iyo nawaafilba way isugu jirtaa bianna lahum ow dha ilaahay inay u sugnaatay uga khabarow dha ilaahay jannaatin jannaat wabashir u bishaarow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban anna lahum ow dha ilaahay subxaana watacaala anna lahum inay u sugnaatay jannaatin jannaat jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru guryaal ay dureerayaan guryaasha afartaba ilahay qur-aan ku sheegtay doona weeye kulamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo kulamaa waxaa layidhi tufiidu tikaar weeye risiga muuminiinta jannada lagu siinaayo inuu mar walba lagu celinaya laga qaadanaya kulamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo min samaratin simaarow dha ilaahay risqan arsuqid laga arsuqo qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay haadaa midkaanu alladii kii weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qabl hadda ka hor waa wixii hadda ka horna la siiyey jannada sideedaba waxa weeye waxa laga cunaayo tamatuc iyo faakiha ayaa loo cunaa ee waxa weeye gaajo iyo dhibaato looma cuno marka ilaahay wuxuu yidhi markii la arsuqo samaar lagu arsuqow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaanu alladii kii weeye misla maa kii masalkiisa weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qabl hadda ka hor waan hadda ka hor cunayna weeye maxaa yeele jannada simaarteedu way isshabahaysaa halayidhi wa utuu waa loola yimid ow dha ilaahay bihi kaas risigaas waa loo keenay mutashaabihan xaal uu yahay kii isshabahow dha ilaahay
waxay sidaa u leeyihiin wa utuu bihi risigaas waa loo keeno ilaahay mutashaabihan xaalu yaa kii shabah yashbahu waxa weeye yashbahu bacduhu bacdan weeye barkiisaa barka kala shabah laakiin wuxuu isku shabahaa layidhi xagga maaragtay madabka weeye dacmiga laakiin waa isu khilaafsan yahay walahum waxaa u sugnaaday fiiha ayuu dhah ilaahay jannada dhexeeda aswaajun haween mudaharatun oo la dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weye xagga tamatucana ilahay wuxuu yidhi haween la dahiray oo xayd iyo wax kastoo la qamoonsa laga dahiray ay leeyihiin haddana jannada way kuwaarayaan weligeed kama baxayaan kamana gaboobayaan weye wallahu subxaanahu wa tacala aclam casharkeena intaas u eegi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu